xaflad ballaaran oo lagu daahfurayay mashruuca waxqabadka goobihii ay saameysay duufaanta Sagar ee gobolada galbeedka Somaliland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorama waxaana kulankaasi soo wada qabanqaabiyay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland iyo hay'adda ADRA oo iyadu fulinteeda leh waxaana kulanka ka qayb galay wasiirada horumarinta biyaha Somaliland wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka maayirka degmada Boorama iyo barasaabka gobolka Awdal Salaadiin waxgarad iyo daneeyaasha kala duwan ee mashaariicda horumarinta ee wax lagaga qabanayo duufaankii kala duwanaa ee ku dhacay gobolada Awdal iyo Salal waxaana kulankaasi ugu horeyntii ka hadlay uga maqsuudnahay hawsha ay wadaan oo ah waxqabad umadeed haddaan ahay duqii degmada shirku inoo furan yahay waana soo dhaweynaynaa wasiirada waana dhismayaa kontraagin waa la bixiyay waana la helay waana la dhisayaa meelaha kale oo jiraan way jireen oo biyaha la bixiyay saddex meelood oo la sii sameeyay in Somaliland in 2002. That's when we had the first project on renewable energy, food security and livelihood, water and sanitation, and renewable energy. maanta milyan iyo 400 kun baa halka laga bal ayaa la sheegay deynta in leegna way maqan tahay laakiin bal inta soo gaadhay waxa leenahay sideeda loo geeyo iyana meel kale mar dumay caafimaadkiyo qofka ruuxaya laga soo qaado Boorama la keeno maxay ahayd meel la dhigahaynan lahayn maanta keenay aad baad u mahadsantiin inkastoo aad nagala soo yardaahdeen oo dhibkii dhacay adib ula dhacdeen haddana maanta haddaad keenteen mashruuc hay'adood baa aniga iyo calaamadsan oo kuwii halkaa wax ka taray Amoud Foundation baa ka mid ah taajar malkee la sheegay baa ka mid ah Kulan Foundation to la yiraahdo baa ka mid ah waxa kale oo ka mid ah safety jil daran ayaa ka mid ah horumarinta caafimaadka baraartigeeda loo doonayo in lacagtani gasho maanta daawo ma qalabna ma laakiin dhismayaashii laga dubay inaan tusaale ahaan lagu hayo oo kale isbitaalkii aan ku tacabteen dadka deegaanka ku dhiseen waa masiibo ilaahay baa tibiyo dumisay waxaanu halkan u joognaa maanta inaynu daahfurno isla markaana aynu bilowno hawshii dib loogu dhisayay deegaanadii gobolka Awdal Maroodi Sheekh iyo Saaxil goobihii ay ku dhufatay duufaantu soo gaarnay waqtigii la bilaabi lahaa mashaariicdii dibdhiska ahayd ee laga qabanayay dhulka deegaanada Sagar ama duufaanadii ay ka dhaceen halkan waxay la jooga wasiirkii waxbarashada iyo wasiirkii biyaha oo labadooduba yihiin wasaaradii wax ka qabtay markii hore imigana mashaariicdan la bilaabay dibdhiska labadooda wasaaradood iyo wasaaradii caafimaadka oo wasiir ku xigeenkii uu joogo laakiin biyuhu sida loo sheegay waa 10 ceel caafimaadkii waa 2 cusbitaal 3 cusbitaal anna halka waxaan ku hayaa liiskii iskuuladii iyo dugsiyadii wax laga qaban lahaa ee duufaantaas wax yeeshay 6 iskuul ayaa wax laga qabanayaa oo dib loo dhisayaa sharaf noogu tahay inaan ku dhawaaqo 10 ceel oo ay Sagar ama dhibaatadii dabiiciga ahayd baabiisay in 10kiiba la bilaabayo sida ugu dhaqsaha badan oo abrid waa caafi TV-ga qaranka Somaliland Boorama.